dagaal culus ayaa ka qarxay Baydhabo oo bay xarun ah Cabdicasiis lafta gareen dhawaan bartiisa Facebook qoraal uu ku soo qoray kadib caawa ciidankiisa ayaa weerar saddex jiha ah ku soo qaaday gudaha magaalada Baydhabo ee gobolka Bay haddaba maxaa dhacay aadan madoobe waa carralay aad ayuu u cabsaday waxaana uu markaasi aaday baa la yiri oo degdeg ugu baxay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo oo gantaalo iyo madaafiic ay ku hoobanayaan gudaha Baydhabo haddaba dagaalkan inuu dhaco ayaa mas'uulka ah ma warkii lafta gareen uu soo saarayba lafta gareen ayaa amar bixiyay xalay bartiisa Facebook ayuu qoraal la yaab leh ku soo qoray taasoo hurdada u diiday aadan madoobe iyo kooxdiisa xukunka sida xoog ah ku joogta sida lagu eedeeyay haddaba maxaa dhacay sidoo kale waxaan ku hayaa wasiir madaxaana furan oo guddoonka baarlamaanka loo dooranayo maalinta Isniinta ah 10ka bishan labadaas war ayaa ku soo gudbinaya soo dhaw muuqaalka like saar subscribe soo channelka waa maasan tahay Baydhabo dagaal culus ka qarxaa la yiri ciidankii lafta gareen ee duleedka magaalada joogay ayaa madaafiic iska soo hormariyay kadibna dagaal toos ah ayay gudaha magaalada ku soo galeen baa leeyahay madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo war qoraal soo saaray ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan doorashada gudoomiyaha golaha shacabka iyo xaaladda guud ee Koonfur Galbeed qoraalka lafta gareen saacado kooban kadib ciidankiisa Baydhabo ayay rabaan inay gudaha u soo galaan oo duulaan ay soo qaadayaan taasi dad badan waxay ku tilmaameen marka wax lafta gareen uu soo abaabulay lafta gareen oo wali sheeganay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee Koonfur Galbeed ayaa shaaca ka qaaday inaysan qayb ka ahayn doorashada Muqdisho ka socoto ee lagu doonayo in lagu soo buuxiyo kursiga baarlamaanka ee uu baneeyay aadan madoobe sidoo kale wuxuu intaas ku daray inaysan jirin cid wakiil uga ah doorashadaas oo ay ku tartami doonaan xildhibaano ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu yiri maamulkayga waxaasi ma og anaa madaxweyne ah cid laga yeelayana ma jirto leeyahay dowladda Koonfur Galbeed waxay cadeynaysaa inaysan qayb ka ahayn doorashada sharci darrada ah ee uu Xasan Sheekh ka wado Muqdisho qayb ka manihin mana aqoonsanin cid wakiil nooga ahna ma jirto ayuu yiri lafta gareen qoraalkaas markii uu soo baxay saacado kooban kadibna baaruud ayaa isqabsatay gudaha Baydhabo Cabdicasiis lafta gareen oo haatan dibad jooga ayaa soo kala sheegay inay wali ku howlan yihiin sidii loo xoreyn lahaa Koonfur Galbeed ayna sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah aaga magaalada Boosaaso aan raada aaga magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waa hadda howlgallada aan kaaga warramayo isaga sii yiri howlgallada xoreynta waa sii wadayna afkiisu ka yiri dowladda Koonfur Galbeed waajibaadkeeda u yaalo waxa waaye gobonimada xorriyadda iyo sidii ay u soo celin lahayd dowladnimada Koonfur Galbeed oo ay gumaysiga ugu dulqaadi lahayd buu yiri ereygaas ayuu adeegsaday Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen dhinaca kale ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo afayeenka lafta gareen oo isagu shir jiraa'id qabtay ayaa faahfaahiyay go'aanadooda wuxuuna sheegay in gabi ahaanba aysan aqoonsaneyn baarlamaan Soomaaliyeed oo dalka ka jira isagoo uu sheegay inuu dhamaaday muddaxileedkii baarlamaanka hadalladan mas'uuliyiintii hore ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan magaalada Muqdisho ay ka socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada gudoomiyaha golaha shacabka waxaana ugu cadcad murashax xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo yaqaan Jaamac waa wasiirka dekedaha iyo sidoo kale gaadiidka badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiir madaxaana furan ayaa loo badinayaa gudoomiyaha baarlamaanka soo socda inuu markaasi noqon doono laakiin lafta gareen iyo saaxiibadiisii kale ayaa aad u diidan oo iyagu warkan soo saaray Baydhabana duulaan culus ku soo qaaday xaaladda Koonfur Galbeedna waxay u sii muuqanaysaa mid quusa oo wali qori ku taag oo la ishayo ilaa ay hadda ma jiro tanaasul cid wax isu markaasi isu turaysa ma jirto shacabkuna waa ay dhibayeen aragtida noor ee muuqaalka like saar siina share garay saaxib waa maasantahay muuqaalkan ila daawo salaan kadib waxa farxad ah oo ilaahay mahadiisa ah oo ilaahay ugu shukriyeynaa munaasabadan qiimaha badan oo maanta aan isugu nimid ilaahayna waafajiyay yaa ku mahadsan baada munaasabadan waxay ahayd munaasabad la qabto munaasabadii ugu qiimaha badnayd uguna quruxda badnayd uguna sharafta badnayd ahayd laanahu waa munaasabad kitaabka ilaahay kor lagu yeelayo quraanka ilaahay loogu kor qaadayo quraanka ilaahay lagu jeclaanayo lagu dhageysanayo ardayda iyo xifdinta
quraanka iyo barashada quraanka kariimka lagu dhiirigelinayo ahayd marka munaasabad la qabto oo ka qiimo badan ma jirto waxyaalaha aan u qabanay munaasabadan qiimaha badan waxay tahay in kitaabka Ilaahay aan kor u qaadno diinta aan dadka iyo ardaydaba aan ku baraarujino macallimiinta aan ku dhiirigelino la barto quraanka Ilaahay waxbarasho iyo wax la barto waxa ugu qiimo badan waa quraankaas dad muslim ah nahay boqolkiiba boqol muslim ah boqolkiiba boqol sunni ah Ilaahay baa mahadaas iska leh waxaan u baahanahay marka inaan wax ugu horeeyo oo waxbarashadaanada iyo xifdintaanada iyo barashadaanada ay noqoto quraanka Ilaahay dadka Soomaalida waxay aaminsan yihiin kulligeen waa nagula soo koriyay quraanka waa nala soo baray laakiin waxa la qabaa qaacida ah quraanka waxa loo baranayo aakhiro waaye maadigana waxa loo baranayo adduunyada waaye adduunyadii baa dadka lagu imtixaamay marka sidaas darteeda yaa iskoolada ilmaha loo geeyaa oo loo hormariyaa qaacidadaas dadka aaminsan yihiin Soomaalida laakiin waa qaldan tahay sida dhabta ah horta adduunyo iyo aakhiro badan adduunyo waa yar tahay wixii Ilaahay kuu soo qorayna waa helaysaa oo wax qoran waay laakiin waxa la rabo in wax loo barto oo dadaalka la geliyo oo loo shaqeeyo inta yarood nooshahay aakhirada waay marka dhinaca loo fikirayo adduunyadan yarta ah waxa kale oo ka sii muhiimsan in dhinaca aakhirada loo fikiro sidaas oo tahay waxay kale xaqiiqo ah oo la soo ogaaday adduunyo aakhiraba inuu anfacayo quraanka ninka quraanka barto oo diinta barto koow u tahay yaa midan maadigana hataa u fududaata qof aan diin aqoonin quraan baranin ardayda u fiirsada waxba uma maadigana hataa uma fududaado marka annagoo adduunyadaanada iyo aakhiradaanada ilaashanayno iimaankaanaga iyo islaamnimadaanada ilaashanayno waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa macallimiinta dugsiga iyo culimada iyo waalidiintaba in quraanka ardayda la baro dugsiyada quraanka la oogo la xifdiyo sida uu Ilaahay noo faray loo barto ayaga adduunyo aakhiraba anfacay ayaga akhlaaq iyo iimaan iyo dhaqanba ku jirta ayada nin walbaba ninkuu ka diin badan yahay waa ka akhlaaq badan yahay waa ka iimaan badan yahay waa ka xurmo badan yahay waa ka sharaf badan yahay waa soo aragnay aydaasaan rabnaa marka ujeedada aan munaasabadan u qabanayna oo sanad kasta